مال الله وايو دقان دقه ماشي ده هدسي قد أكها هد هوسيسا قريفا ودن بيان بان أمالين حقا كم مقدنا وابورة marka inta badan waxa ka dhacsan dadkeena waxa ma qabsan kartaan waxbarashadii adigoo yar waxba lagu soo barin dadka hadda wadankan ayaga they don't care qof weyn oo waxa arkaysa especially dadka xoolaha dhaqatada magaaladan deegaanka uu aho iska leh ayagoo waxa arkaysa si la u raacayaan oo xoolo u raacayaan ayagoo waaweyn iskuul galiyad arkaysa oo 20 sano xitaa kor u dhaaf markaas ay hoos ka soo bilaabayaan shaqada waxaad arkaysaa waxyaabo cajiibka aan la yaabay qofkii waxaad arkaysaa shahaado wata master degree laakiin se wixii uu soo bartay iyo xirfadii uu lahaa shaqo markuu ku waayo qudaar buu gadayaa wadada geeskeedu mis dhiganaya fruits yaanyo wax uusan keenin malahan qudaartaas u gaday wixiis uu aruursanay maalintii shaqo fiican ee dawladda uga soo baxdo ama meel kale uu shaqo ka helo hay'adaha maalintaas uu wixii ka tagayaa ama uu sii wadayaa qof buu shaqo gelinayaa wuxuu leeyahay igad marka dadkan waxay nooga fiican yihiin isma dhiibaan ayagu xaalad kasta ku sugan yihiin isma dhiibaan hoos bay jecelihiin inay ka soo bilaabaan markaas waa East Africa hadeertan wadanka ugu dhaqaalaha fiican waa Kenya waa the hub of East Africa in terms of dhaqaalaha waxyaabahaas dhan aad bay ugu fiican yahay wadankan iyo wax soo saarkii beeraha sababtoo ah dadkiiba waxay u yihiin shaqadii daacad dadkiiba daacada ayagu ma kala jecla meesha ka bilaabayaan degree baan wataa ma dhahayaan hadaysan waxba baran waxbarasho maana soo baran intay dhahan lugaha isma saaranayaan guryaha dhisayaan waa dad dhismaha aad ugu fiican wadamada kale kama keensadaan shaqaale ayaga in laga wato maahan Kenyaanka waa the most generous people hadana waa dad aad u caqli badan oo dabeecad wanaagsan aad u dabeecad wanaagsan waa qof Kenyaan intuu maanta ugu soo xadgudbo kuma qashqashaaday hadduu ku qashqashaado qof Kenyaan ah qof kale oo Kenyaan ah ka celinay in case hadduu ku qashqashaado ma yaqaanaan qofkaana qofkayga ma aragtay qofkaana waa soo galooti waxa la yeelo ama hal dhibaateeyo ayagu ma yaqaanaan marka haddii wadanku uu yahay wadan dad fiican wadan kasta waa dadka haddii wadanku yahay wadan dad fiican in laga faa'iideysto fiican in laga shaqeysto horta ganacsi aad u far badan magaalooyinka waaweyn Soomaalidu ay ku leeyihiin laakiin se wadanka hadii uu yahay wadanku wadan dadkiisu ay leeyihiin soo dhaweyn iyo wanaag oo ku wanaajinayaan oo aysan kala jeclayn oo isku oranayn meeshaad ka timid ku laabo isku faquuqeen meeshaad rabtid aad isku ilmahay ka geysanaysid meeshaad rabtid aad guriga gadanaysid waxa fiican in maximum sida si ugu wanaagsan looga faa'iideysto in looga faa'iideysto waxa loo sii wata yarta dadkan aad bay u jecel yihiin looda aad waxay aaminsan yihiin looda adduunka joogto dhan inuu Ilaahay ayaga u soo maaragtay in ayagu iska leeyihiin meeshay rabta ha joogto looda ama ha joogto Tanzania ama Soomaaliya ha joogto meeshay rabta ha joogto waa waxay ayagu aaminsan yihiin loo haday arkaan ayaga iska leh loo hadda way dhacaan hadeertan beero waxa jira dad Soomaali leeyihiin magaalada qarkeeda meelahaas ku yaala dad xoolo dhaqata ah oo Soomaaliya xoolo iyo intay loo iyo waxyaabo keensadaan waa loo dhacaa habeenkii marmar dadkan waa dad maartay inta badan iska cawaan ah oo haddana iska xoolo dhaqata wax aan baran u badan yihiin marka most of the time way ku dhacayaan loodina way ka xafsanayaan geela ma taabtaan Soomaali badan ay geel haysata oo geel dhaqata ah laakiin farma saarayaan geel farma saaraan looda bay ka qaadanayaan waxay leeyihiin anaga iska leh loodana dhigay ka cadaan dhigay ka shaqaan waan ka soo baxay meesha aan taagnaa xoogaaba soo socday waan raagaya xitaa meeshan soo fuulaa waxay tahay meel dalcad ah marka jimcsan caadi hina maanta qaatay wallahi xaafadaan hadda aan soo istaagay waa xaafad magaalada ka baxeeda bismillaah xaafadaan magaalada ka baxeeda waaye wax yar baa ka dambeeya xaafadaan actually waxa ka dambaysa xaafad ay degaan dadka dhaqaalaha fiican haysta oo tujaarta xaafadda degan tahay xagaas ka balse inta la gaaray xaafadaas ay tabuul ayaad maraysaa meel cidlo ah rafaad qajajac marka ma baadiyo
anigana koobka fulinimadan qaaday waxaan isleeyahay intaas sii socodid ama yaa meelahaanayto dadka ay ka dhow yihiin oo guriyuhu ka dhow yihiin baan at least iska marmari inkastoo hadda socod igu filan aan soo socday xaafadan dhismuhu aad buu u socdaa xaafad ma dhihi karo magaaladoo dhan waa magaalo yaroo dhismaysa haddeertaana waa dhismaa ku socda meeshaan weli haya qofkii xitaa aan guri weyn dhisan guryo yaryar buu dhisanayaa meel kasta dhismaa ka socda meel kasta dhismaa ka socda guryo noocaan oo gaagaabanaa la dhistaa inta badan dadku dabaqyo ma dhistaan guryahan gaagaabana waa self contain waa guryo ee dadku rabaan inay ayagu degaan marka waa guryo waxaa waaye oo private oo dad iska leeyihiin dadka iskala ay degan yihiin waaye inta badan sheekadii awooday telefoonka waan jaray intaan soo socdo meesha dalcadda aan fuulayay waxaan dhihi karin anigoo dalcadda fuulaya marka dadka magaaladan degan Masaayda ah waxay aaminsan yihiin in lo'da ay iyagu iska leeyihiin lo' meeshay ku arkaan way kugu qabsanayaan hadda Soomaali waxaa jirtay looyaal haysatay oo lo aad u caana badan lo'du way kala caana badan tahay waa grade 1 iyo grade 2 waxaas ay kala leedahay jecel marka lo aad u caana badan ay Soomaalida haysteen mar kastana inta loo galaa laga dhici jiray shaqaalaad qabanaysaa wardiyaal baad qabanaysaa beerta ku wardiyeynay saasoo tahay laakiin kama amaan helaysid lo meesha ku arkaan ayaga iska leh way ku soo dhacaan soo kugu soo dhacaan balooday ka didsanayaan ariga ma xadaan geela ma xadaan waxyaabo kale ma xadayaan inta badan inta guriga kugu soo dhacaan kuma qashqashaadayaan oo dhaqaalihi waxay ku weydiisanayaan laakiin lo meesha ku arkaan ilaa aragti baa ka dhaxaysa waxay aaminsan yihiin looda inuu ilaahay ayagu sameeyay si qaas ah oo qof kale uusan loo yeelan karin bay aaminsan yihiin marka Soomaalina waxa dhaqata ayagana meesha degaan waxay jecel yihiin inay xoolo iyo wax gadgadaan geel iyo lo iyo gadgataan magaaladana looda aad bay u manaafac badan tahay oo aad baa looga faa'iidaa caanaheeda la gadaa hilibkeeda la gadaa oo waa la qashaa waa aad baa loo cunaa hilibkeeda anigu waxaan buu maleyn jiray waagi hore Soomaalidu ariga kaliya inay cunaan hilibka ariga kaliya cunaan laakiin hadda waxaan ogaaday looda xitaa iyo ariga inay u simantahay sababtoo ah meesha ay imaatid waxa laga cunaad la qabsanaysaa aad loo jecel yahay hilibka looda waa la qabsadaa waxay dhahaan infection laga qaadaa cudurro laga qaadaa looda cudurro badan ku dhaca balse looda wadankan waa la daaweeyaa check up ayay maraan daawooyin ay qaataan cirbaday qaataan waa la buufiyaa oo waxa laga buufiyaa cayayaanka iyo waxyaabahaas ay ku dhalan kara waxyaabo aad u far badan loo qabtaa waxa way xooluhu aad u uga leeyahay qiimo weyn markii abaartu ay imaataan eber bay ka noqdaan waa sidii wadankan iyo kale abaar haday imaato wixii raay haysteen dhan waa ka baqtiyaan hadana zero ka soo bilaabaan ama wax yar u hara ilaahay roob ha u keeno Soomaaliyana hadda roobkii dhan way ka soo daaheen East Africa dhan inay taa maleynaya Kenya bas is ahayn wadanka xitaa abaaro weyn ka jiray ilaahu hadda roob keen roob soo socday qofka soo yahay daruurahan madmadow waa daruuri roobka clouds dark ah waa kuwa roobka wada waaye kale roobkii hadda curcuranaya roobaadi doona insha Allah inta badan waxay fahmeen tuulooyinkay fahmeen nolosha magaalooyinka yaryar aad hadartan loo xiiseynaya dadka buuqa jecel magaalada weyn dadka iska buuqa nacab meelaha degan jecel magaalooyinka yaryar faa'iidooyin aad u badan ay leeyihiin magaalooyinka yaryar especially ilmaha faa'iidooyin aad u badan ay leeyihiin sababtoo ah ilmo cunugii wuxuu aadayaa iskuulkii gaari uga cabsanaysid wax kale waa meel yar dadku is yaqaanaan si nabad u aadaya iskuulkiisa si nabad uga imaanaya dugsigina sidoo kale waa iska buuq yar tahay waxbarashadu way fiican tahay aniga hadaan ogahay faa'iidooyinka magaalooyinka yaryar ay leeyihiin kama guureenbo meel kale taxtaa ma aadeen laakiin haddeertaan waxaan dareemay in qiimo aad u weyn ay leeyihiin magaalooyinka yaryar
buuqina waan soo nacayo hadda magaalo weyn iyo buuqeeda iyo gaariyaasha maanta dhan hoonka yeerinaya war wax yar xitaa maskaxda kugu degayso magaalooyinka aad u waaweyn inta badan ardada jaamacadaha dhammaysaa shaqo u doonato balse qofkii aan shaqaynayn magaalooyinka yaryar waxa uga fiican ma lahan waxbarashana waa helaysaa nolol waxaa helaysaa degan oo buuq la'aana maanta qoraxdu way soo bixi la'da saana ka daacada marka daruur roobaa soo socdo roob xoog leh والله si fiican u socdo maanta socod waxaan socday aan caadi ahayn lugaha ku kala baxaa xitaa dadka guriga iska fadhiya inta badan soo socda subaxii geed yaraa ka baxaay runtii hitalo bismillaah halkaan aan ku ekeysiinayaa insha allah khayr baan idin rajeynayaa dhammaantiin